السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا دي سلام يا دمانتين صاحب بيال وحان مانتي دي لو وداقيا إذينا تصيا ميد كميد تولك اللوغو استعمالك بدنيا هاي حق النتويقا يولي با حق penetration testing ka ama ethical hacking ka toolkani waxa magaciisa loo yaqaanaa beam ama waxa la yiraahdaa beam command toolkani waxaad ka heli kartaa Linuxka Windowska iyo Mac toolkani waa tool yar oo kooban loona isticmaalo si loo ogaado ciladaha network ama waxa loo isticmaalaa network si loo taskareeyo network connectivity-ga toolkani waxa kale oo loo isticmaali karaa inaad tijaabiso network interface card-kaaga inuu shaqeynayo iyo inaanu shaqeynayn waxaad u isticmaali kartaa isla toolkani beam loo yaqaano sidoo kale toolkani waxa loo isticmaalaa ciladaha in la ogaado ciladaha dhinaca DNS-ka ha noqoto DNS name resolution-kii oo kale toolkani waxaynu ku beam gareyn karnaa any network device ha noqdo computer ha noqdo server ha noqdo router ama printer midku doonaba ha noqdo toolkani waxaynu isticmaali karnaa inaynu ku beam gareyno host kasta host markaan leeyahay waxaan ka wadaa ama server ama router ama printer ama computer host kasta waynu ku beam gareyn karnaa hostigaasi ha noqdo mid local area network-gaaga mid xafiiskaaga mid gurigaaga hostigaasi ha yaalo xafiiskaaga ama gurigaaga ama iskuulkaaga ama mid ka baxsan ha noqdo toolkani waynu isticmaali karnaa toolkani waxa inta badan isticmaala dadka network-ga ku shaqeeya waxayna u isticmaalaan inta badan marka ay system setup gareeyaan ama network ay setup gareeyaan network-gaasi oo ka kooban devices ka kooban ama router ama computer ama server ama printer midku doona ha noqdo marka uu setup gareeyo waxa uu rabaa server-kani inuu ku xidhan yahay computer-kan kale si uu taasi u tijaabiyo waxa uu isticmaalaa beam ayuu isticmaalaa marar badan sidoo kale waxa loo isticmaalaa toolkani in la ogaado system-kaagii inuu gaari karo oo uu ku xidhan yahay router printer iyo wixii la midka ah in system-kaaga ama computer-kaagu uu ku xidhan yahay server-ka markaad rabto taasi oo kale inaad tijaabiso waxa la isticmaalaa beam ayaa la isticmaalaa haddaba qaabkee ayaa loo isticmaalaa okay qaabka loo isticmaalayo aad ayuu fududahay tusaalahan waxaan rabaa inaan idinku tuso waxaan rabaa inaan beam gareeyo server aan computer-kaygan aan ku isticmaalayo serverkaasi wuxuu wataa IP address IP address-kaasi waxa weeyaan 192.168.7.2.6 weeyaan system-kan kalena waxa weeyaan 192.168.7.2.5 labadan system inay wada shaqeynayaan labadan server inay wada shaqeynayaan marka aan rabo inaan ogaado waxaan isticmaalayaa toolkan loo yaqaano beam okay waxaan leeyahay beam deeto waxaan qorayaa systemkii aan rabay inaan tijaabiyo inaan ku xidhanahay IP addresskiisa haddaan xasuusataan waxa uu ahaa 192.168.72.6 waxaan leeyahay 72.6 ayaan leeyahay simple weeye toolkan aad ayuu fudud yahay isticmaalkiisu laakiin aad ayay u badan tahay faa'iidadiisu okay markaan rabo inaan haddaba toolkani aan tijaabiyo server inaan ku xidhanahay ama router inaan ku xidhanahay waxaan leeyahay simple kaliya intaan qoro command-kii ayaan waxaan raacinayaa server-ka ama computer-ka ama router-ka aan rabay inaan ku xidhanahay inaan ogaado IP address-kiisii deetana waxaan leeyahay enter ayaan leeyahay okay halkan waxa iga soo baxay result ayaa iga soo baxday result-gan ayaa waxa ii sheegaysaa inaan server-ka ku xidhanahay iyo inaanan ku xidhnayn inay ciladi jirto iyo inaanay jirin haddaba waxaynu akhrin doonaa result-gan haddaba intaynaan eegin result-gan ii soo baxay ee halkan iiga muuqda waxaan rabaa inaynu bal eegno qaabka ay u shaqeynayso
bin waanu ima doonaa waxa halkan ka soo baxay waxa uu yahay dhammaan waxaan wada eegi doonaa laakiin si aynu isla fahanno waxaan eegi doonaa qaabkan ay bin u shaqaynayso bin marka hore aynu qorno bin command-ka aynu raacino IP address-ka bin waxa uu diraysaa IP address-kan echo request deeto waxay sugaysaa inay ka hesho echo reply haddii ay hesho echo reply macnaheedu waxa weeye hostigaasi waa daaran yahay waynu ku xidhannahay waa live waa app hostigaasi waa app weeye laakiin haddii ay timaado hostigaasi in aynu ka heli weyno reply waxbaa jira markaa waxbaa jira wixii jira waynu eegi doonaa dhammaan tusaalahaas waxaan hadda taskareeyey systemkaygan oo ah local area network systemkaygan oo ah local area network micnaheedu maaha inaynu taskareyn karno system local area network oo kaliya ah laakiin sidoo kale waxaynu taskareyn karnaa mid kale oo ka baxsan local area networkina sidoo kale waxaynu ku isticmaali karnaa windowska oo windowska sidoo ugu isticmaali kartaa windowska waxaad ugu isticmaali kartaa inaad tiraahdo oo soo furato cmd-daada markaad soo furato ay cmd-daadu qaabkan kugu soo baxdo waxaad odhanaysaa bin deetano waxaad raacinaysaa IP-ga aad rabto inaad hubiso inuu live yahay inaad IP-gaasi aad ku xidhan tahay device-kaasi inaad ku xidhan tahay ka aad rabto inaad taskarayso ayaad IP-giisa raacini waxaa sidoo kale aad taskarayn kartaa hadeer waxaanu taskaraynay mid local area network marka kani waxaynu taskaraynaynaa google-ka inaynu ku xidhannahay iyo in kale marka aynu isticmaalayno windowska sida default-ka ah waxa uu diraa 4 baakad ayuu diraa waxaad arkaysaa resultiga markii hore ay soo baxay iyo resultiga hadda ay soo baxay inay isu mid yihiin macnaheedu waxa weeye bin waxaad u isticmaali kartaa local area network waxaad u isticmaali kartaa local area network-gaaga mid ka baxsan waxaanu nini bin marka ay ugu horeysa eed command ka qorto eed raaciso destination IP address-ka ama IP address-ka aad rabto inaad xaqiijiso inuu live yahay ood ku xidhan tahay waxa windowsku sida default-ka uu diraa 4 baakad deeto 4ta baakad ayuu sugaa inuu helo echo reply hadduu echo reply helo macnaheedu waxa weeye device-kaasi waynu ku xidhannahay server-kaasi waynu ku xidhannahay waynu gaari karnaa haddii se ay ciladi jirto oo khadku uuna jirin imika google baan bingaray haddaanu khadku jirin lahayn oo kale ima soo saareen oo error ayuu soo saari lahaa waynu eegi doonaa dhammaan ciladaha macquulka ah iyo qaababka loo xaliyo okay hadeer waxaynu taskaraynay local area network sidoo kale waxaynu taskaraynay wide area network ama mid local area network-geena ka baxsan waxaynu helnay laba result oo kala duwan labada result oo kala duwan maxay yihiin micnaheedu maxay tahay intaanan intaasi aanan u gamin xagga dambe ayaynu ka fahmi doonaaye waxaan rabaa inaan window kale aan soo furto windowgan aan soo furtay waxaan rabaa inaan taskareeyo server ama IP waxaan hore u sheegnay bin in loo isticmaalo network-ga haddii network-gaasi aad rabto server ka mid ah inaad computer aad ku xidho waxaad odhanaysaa bin iyo serverkii IP-gii ama routerkii IP-gii sidoo kale haddii bal ka waran markii hore waxaanu bin garaynaynay 192.168.72.6 waynu ognahay serverkaasi waa jiraa oo waa kii local area network-geena ama waa computerkii kale serverkeenii kale ee markii hore aynu tijaabinay weeyi haddaan intar idhaahdo isla resultiga halkan iga soo baxay ayaa ii soo baxaya oo micnaheedu waxay tahay serverkaasi waan ku xidhanahay waan gaarayaa serverkaasi marka aynu reply helno micnaheedu waxa weeye waa live waa app waana shaqaynaya waayahay bal ka waran haddii aan server aan jirin IP address-kiisa aan qoro maxaa dhacaya waxaa dhacaya waxaad halkan ku arkayso maxaad arkaysaa imika waxaad arkaysaa destination host unreachable oo micnaheedu ay tahay hostigan aynu rabno inaynu bingarayno lama heli karo
maaha mid la gaari karo, maaha mid shaqaynaya. haddaba intaanan taasi aanan sii gudagelin waxaan rabaa labada resulti ee inoo soo baxay inaynu baldul istaagno macnaheedu waxay yihiin. okay, kani waxaynu dirnay markii hore 4 baaked ayaynu dirnay 1 2 3 4 waxa aynu helnay markasta oo bin waxay isticmaashaa protocol loo yaqaano ICMP markasta oo ay diro oo uu diro echo request waxa uu helayay echo reply ayuu helayay. sidaas ayaynu ku helnay echo reply ama 4 baaked. inaga ayaa dirnay bay ahayd 4 baaked oo echo request 4 baaked ayaynu helnay. soo halkan waxa ku qoran 4 received ayaa ku qoran. okay, halkan waxa ku qoran 0% ayaa ah baaked lost. wax baaked ah oo halaabay waa 0 ma jiraan macnahan wax baaked oo inaga halaabay. okay, resultigan hoose markaad u fiirsato markii aynu bin gareynaynay IP address aan jirin waxaad arkaysaa halkan waa 0 received waayo wuxuu inoo soo saaray wax baaked oo aynu helnay ma jirin. 3 baaked baynu dirnay 3dii baaked ba waa inoo soo celiyay iyaga oo host unreachable ah iyagoon reply aan la helin. marka reply la helo baakedkaasi wuxuu aqoonsanayaa in la receive gareeyay laakiin haddii la waayo waxba uma aqoonsanayo. marka 0 received sidoo kale waxaad arkaysaa 3 errors ayaad arkaysaa. halkan waxaad arkaysaa baaked loss wuxuu ahaa 0 ayuu ahaa laakiin halkan markaad u fiirsato baaked loss waxa weeyaan 100% calashaan wixii request aynu dirnay echo request hayo dhammaantood waa la loss gareeyay. okay, haddaynu u fiirsano kaas wuxuu ahaa google-kii ayuu ahaa oo markii hore aynu 4 baaked aynu ka helnay. sidoo kale 4 baynu dirnay waxaynu receive gareynay 4 lostigu waa 0 lostigeenu waxa weeyaan 0 weeyaan 0% calashaan wax la loss gareeyay ma jirto. haddii aan imika systemkayga khadka ka xidho oo disconnect yiraahdo on mar labaad google-kii aan ku celiyo hostigii lama aqoonsanayo laakiin haddaan bin gareeyo 192.168 IP address aan jirin 7766 haddaan bin gareeyo on yar sugno control plus C ayaa lagu kansalaa. aan ku soo celiyo. okay, sidoo kale wadiga arkaya imika 2 baaked ayaan diray 2 ayaa senti ah receiverku waa 2 0 lost weeyaan laakiin baakedkan aynu receive gareynay waa unreachable weeyaan oo maaha baaked. waxaad ka arkaysaa losskeena ayaad ka arkaysaa. marka bin markan oo kale waxa lagu ogaadaa serverkaasi marka uu ku soo saaro cilada noocan oo kale ah maxaad aqoonsanaysaa. waxaad aqoonsanaysaa tusaale ahaan IP address ayaad system baad setup gareysay systemkii markaad routerka aad xidhay serverka aad xidhay bin tiri noocan ayuu kugu soo baxay host unreachable xadhigii waa caadi uu ku haystaa laakiin host unreachable ayaa ku soo baxay. macnaheedu waxa weeye inaad dib ugu noqoto waxaanaad isticmaalayso ama xadhiga ha noqoto ama systemka electricityba inuu dansan yahay ha noqoto hostiga aad rabto inaad test gareyso oo bin gareyso ee hubiso inaad live u yahay hostigan aad rabto inaad test gareyso inaad ku xidhantahay in kale waa unreachable weeyaan waa mid aan la gaari karin weeyaan. markaas waa baakedku marka uu failed yahay qaabkan oo kale ayay bin resultiga dadka u siisaa. result waliba dadka anfacaya weeyaan marka uu hostigu isku wada xiriirsan yahay xadhigu okay yahay systemku live yahay wuxuu ku soo saarayaa reply-ga caadiga. okay, resultiga mararka qaarkood waxa uu soo saaraa. hadda waxaan iska damiyey serverkaygii aan markii hore bin gareynaynay 192.168.192.168.72.6 ahaa serverka ayaan damiyey. maadaama aan damiyey haddii aan idhaahdo mar labaad bin 192.72.6 ayuu ahaa mar labaad haddii aan bin gareeyo maxaad filaysaa inuu ku soo baxo waa host unreachable. marka micnaheedu waxa weeye serverkii ama systemkii ama computerkii ama printerkii ama routerkii aad rabtay IP addresskiisa aad halkan ku qorteed bin gareynaysay hubinaysay inaad ku xidhan tahay waa mid aan la gaari karin. mararka qaarkood wuxuu yiraahdaa host unreachable
marka qaarkoodna wuxuu yiraahdaa tusaale ahaan haddii aynu Windows-ka ka soo bin garayno aan yiraahdo bin 192.168.72.6 ayuu ahaa haddaan enter yiraahdo yes wuxuu yiraahdaa request timed out ayuu yiraahdaa why uu oranayo marka uu noocan yiraahdo laba mid u baa jira ama ay noqon kartaa inuu serverkii uu dansan yahay aanu shaqeynayn sida imika aynu sameynay oo kale ama inuu firewall uu jiro packetkeena marka aynu dirno cancelaya oo joojinaya inta badan packetskan waa la joojiyaa haddaba inteer waa tusaale yar oo kooban kuna saabsan inagu wuxuu ku saabsan yahay inaynu ku ogaano qaabka loo isticmaalayo bin waynu eegi doonaa videoska dambe iyadoo faahfaahsan ama qaababka ay u isticmaalaan qolooyinka hackerska yiraahdo aad baan dhamaantiin idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh